ربي لك الحمد ربي لك الشكر ربي لك الفضل ربي لك المنة ربي لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي دمان أصحابتك وحرن جنر كين وهلياء ومدى هدي أد نقول حسب تأسوده وسبسكرايب كتابو جنباليل كان فرو سي كوسو غاران وحول بان صودق ندر بديبا هدي أد هورين الجوكتينا لايك سار ولو ذاك أصحاب تادا كنسو قل فكر كافي عن قيبته سي كومنتي دا كان ميد نقو أصحابته وهلياء ومدى سي أن سوى جرا سوى هليسانو إذن كالله إمين كان داوشة وعن habeenkii xigay markii la gaaray ayay Shahrazad tiri boqoroo markii gabadhii tiri wallahi inaan ku dhaafeen anigoo ku ciqaabin ayay waxay soo qaadatay suun weyn waxayna bilowday inay garaacdo ilaa uu jirkii ka casaaday kolkaas ayay intay khaadimadeedii dhiibtay waxay ku tiri doqonkan iga horkaxeeya hana laga gooyay gacmihii oo ku cunay cuntadii xumay markaas ayaan yiri laa hawla walaa quwwata illa billah ma waxaad gacmaha ii goynaysaan cuntiyar aan cunay iyo farxad la'aan aan farxalan waayay jaariyadii kale ee meesha joogay ayaa ku سيدتي مركان اسكداف او مسكين كان وحبا قعماها كجري waxay ugu jawaabtay waan dhaartay waana qasab inaa wax uun ka gooyaa kolkaas ay qolka ka baxday ayadoo xanaaq la karaysa kadib way soo laabatay waxayna amar ku siisay adeegayaasheeda in laga gooyo afarta sool aniguna waxay igu tiri balan iga qaad inaan cuntadaas mar dambe cuni doonin adigoo gacmahaaga 40 jeer iska dhaqin waana u qaaday waana sababta aan u naxay markaad isoo hordhigteen cuntada zubraajada aan gacmahayga u dhaqay 40 jeer kadib gabadhii waxay ii dhiibtay lacag aad u fara badan waxayna ugu tiri noo soo iibi guri weyn oo waasac ah qasrigan waan iskaga guuraynay sidii ayaan qasrigii kaga guurnay markaas ayaa ninkii muslimka ahaa boqorkii ku yiri boqorow sheekadan haddii ay ka yaab badan tahay sheekadii wirshaha fadlan nasiida boqorkii ayaa ku jawaabay wax sheekaha aad noo sheegtay ma jiraan waana catar baqash iyo sheeko aan nuxur lahayn waana qasab inaa idin daldalo dhammaantiin markii ay halkaas maraysay sheekadii ay Shahrazad dareentay in suuxi la gaaray wayna joojisay hadalkii u banaana haweenkii soddonaad markii la gaaray ay Shahrazad tiri waxa soo gaaray boqorow markii boqorkii uu yiri waana qasab inaa idin daldal dhamaantiin ayaa waxa istaagay yahuudigii waxa uu ku yiri boqorow aniga ayaa ku sheegay sheeko ka yaab badan midaan weershaha ayna haysata boqorkii ayaa yiri soo daa waxaad hayso yahuudigii hadalka waxa uu ku bilaabay anigu waxaan ahaa nin farsamo yaqaan ah maalin ayaa waxa la iga yeeray guri si aan hool ugu soo qabto qalabkayga ayaan soo qaatay waxaana soo aaday gurigii balse waxaan ugu imaaday wiil aad u qurux badan oo saaran sariir aad moodo inay dahab tahay wuxuuna ila muuqday nin naafo ah ama buka hooshaydii ayaan gudagalay markii soo dhameystay ayaan soo baxay waxaana u yimid wiilkii waxaana u sheegay inaan hooshaydii dhameystay kolkaas ayuu igu yiri xoogaa yar nala joog maanta anaga ayaad noo casuuman tahay waana ka aqbalay wiilka waxa uu ahaa mid gacantiisa midig ay go'an tahay markaasaan weydiiyay oo ku yiri maxaa gacanta midig ka gooyay oo kaga dhacay wuxuu ugu jawaabay hadda koor anigoo magaalada Dimashq joogay ayaan halkaas waxaan ku bartay gabar aad u qurux badan waxayna ahayd gabar furfuran bashaash ah oo sheeko badan gabadhii ayaan xiriir la yeeshay waxaynu noqonay laba qof oo isku xiran maalintii dambe ay waxay ugu tiri waxaan rabaa inaan ku baro gabar kale oo saaxiibteeda ah aadna ku danaynaysa waana ka aqbalay maalintii xigay ay gabadhii ii timid ayadoo gabadhii kale la socota waxayna ahayd gabar kale oo iyadana aad u qurux badan kaftan iyo sheeko dheer kadib gabadhii aynu saaxiibadu ahayn waxay ugu tiri waa idin soo yara laabanaya oo sheekadiina iska sii wata waxaana isku soo haray anigii iyo gabadhii cusbay gabadhii kale waxay soo noqotay anagoo qosol iyo farxad ku jirna oo si weyn isku fahanay arrinkaas oo si weyn ugu maseeftay uguna carootay kadib inta ay mindi soo qaadatay ay gabadhii kale qoorta hor dhigtay subaxii markii waagi bariyay aan soo toosay ayaa waxaan arkay gabadhii oo madax laga gooyay oo qoorta feeraha loo saaray taasoo aad ii argagax gelisay tala ay uga cadaatay maxaan sameeyaa talow haddii sidaan lagu arko waxaa lii moodaa in aniga gabadhan dilay waana lii dilayaa kolkaas ayaan go'aansaday inaan gudweyn qodo aan gabadhii ku rido sidii ayaan yeelay waxaana soo qaatay katiinad ay wadatay gabadhii dhimatay aadna u qaali ahayd waxaana soo aaday suuqa doqonnimadeeda waxaan isku dayay inaan katiinada iibiyo katiinadu waxa ay noqotayba mid horey loo xaday oo la baadigoobayay taasoo kaliftay in suldaanka la ii geeyo waxaana lay weydiiyey xagee katiinadan ka keentay haddii aan runta u sheego oo aan dhaho gabadhii katiinadan lahayd waa la dilay aniga ayaa laga qabsanayaa waxaaba macquul ah inaa qoorta laga gooyo markaas inaa gacanta laga gooyo ayaan qaatay aniga oo sheegtay inaan katiinadan xaday sidaas ayaana gacanta laga gooyey haddaba suldaanow miyaynan sheekadan ka yaab badnayn midii ninkii weershaha ahaa kolkaas ayuu suldaankii yidhi yahuudiyo wejiga xun leh
waxaad inoo sheegtay mana qaane dhammaantiina qoorta ayaan idinka wada jarayaa waxaana ugu horaysiinayaa dhartolahan oo musiibada dhan ka taliyey markaas ayuu haddana boqorkii shiinaha yidhi hal mid ayaan idinku cafin karaa waxayna tahay haddii uu ninkaan harqaanlaha inoogu sheekeeyo mid ka yaab badan sheekadii ninkii weershaha markaasaan dhammaan arwaaxdiina idin hibeenayaa sheekadii timijaraha baqdaad boqorkii shiinaha markuu sidaas yidhi ayaa waxaa hadlay ninkii harqaanlaha wuxuuna hadalkii ku bilaabay waxaan kuu sheegi doonaa boqorow sheeko cajiib badan waxaana ka yaab badnaan doontaa sheekadii weershahan anigu shalay intaan la kulmin ninka weershaha waxaa laga wacay shir looga hadlayay arrimaha dhartolida farsamada iyo waxyaalaha la midka ah wuxuuna u dhexeeyey ganacsatada ka ganacsata dharka iyo dhartoliyaasha oo aniga ka mid ahaa sidoo kale waxaa shirka joogay qaar fara badan oo farsamayaqaan oo gacmahoodii ku xamaasha markii raashinkii la keenay ayaan wada fadhiisanay waxaa shirkii noogu yimid ninkii guriga lahaa wuxuuna noo soo galay asigoo la socda wiil aad u bilacsan laakiin jiis ah markay soo galeen oo ay damceen inay nala fadhiistaan ayaa waxaa diiday wiilkii jiiska ah inuu nala fadhiisto wuxuu isku dayey inuu iskaba tago oo dib u noqdo waan ka daba tagnay waan la hadalnay laakiin wuu naga diiday inuu sina u fadhiisto markuu sidaa ku adkaystay ayaan weydiinay sababta uu diiday inuu nala fadhiisto wuxuu noogu jawaabay timajalaha reer baqdaad ee meesha fadhiya dartii ayaan idinkaga tegayaa mana idinla fadhiisan karo kolkaas ayaan ku nidhi oo maxaa dhacay oo timajarahan muxuu kugu sameeyey bal noogu jawaab wuxuu noogu jawaabay anigii iyo timajaraha sheeko cajiib ayaa naga dhex dhacday inaan maanta jiis ahaadana isaga ayaa ka mas-uul ah oo lugta iga jibiyey wixii markaa ka dambeeyeyna waxaan ku dhaartay inaanan tegin meel uu joogo magaalo uu degan yahana la degin waana sababtii igu kaliftay inaan magaaladii baqdaad ka soo guuro caawana magaalada ma seexan doono oo dartiis ayaan ugu guurayaa waxaan ku idhi waayahay bal noo sheeg adiga iyo timjarahan waxa idin dhex maray oo idin kala qabsaday wuxuu ku jawaabay waxaad ogaataa in aabbahay ahaan jiray nin ganacsada ah weliba ganacsada weyn ah wax u wad ahna aniga oo keliya ayuu u dhale oo ugu weyn markii aan kore oo weynaaday waxaa geeriyooday aabbahay allah u naxariistee isagoo iga tegey hanti aad iyo aad u fara badan waxaana gudagalay inaan hantidiisii iskaga raaxaysto maalin maalmaha ka mid ah anigoo magaalada iska dhex socda ayaa koox burcad isku dayday inay dhacdo kolkaas ayaan soo cararay waxaan si lama filaan ah usoo galay guri arooska dhacayo oo meesha ku yaalay markaan in muddo ah arooskii dhex joogay ayaan waxaa arkay gabar aad u qurux badan oo aad moodo dayax 15 ah sidee u ifaysa dartii halkii ayaan iska joogay waxaana gudagalay inaan gabadha quruxdeeda uun daawado ilaa laga gaaro habeenkii fiidkii markay tahay ayaa goobtii arooska waxaa yimid barasaabkii magaalada wuxuuna ka xigay gabadhii kolkaas ayaan ogaaday inuu aabbaheedii yahay gabadhii markii la waday ayaa anna iska soo baxay laakiin waxaan dareemay qandho aad u kulul iyo xiiso iyo hilow aan u qabo gabadhii quruxda badnayd maalmo ayaa ka soo wareegatay anigana sideeda ayaan iska ahaa ilaa aan ka xanuunsaday dadkii ayaa xanuunkii ka war helay oo isoo booqday balse xaqiiqadu waxay ahayd inaan jeceyl aan u qaaday gabadhii uun aan sariirta la jiifay maalintii dambe ayaa waxaa ii timid islaan waayeel oo isoo booqanaysay waxayna dareentay waxay haayo inay jiri ka weyn tahay markaas ayay igu tidhi ii sheeg siday wax u jiraan anna waxba kama gambane sheekadii bilow ilaa iyo dhammaad siday wax u jirtay ayaan ugu sheegay markaan sheekadii u dhameeyey ayay waxay igu tidhi gabadhaas barasaabkii magaalada ayaa dhalay mar ayaan gurigoodii tagaa markaan gurigoodii tago ayaan waxaan ugu warmayaa xaalkaagii iyo siday wax u jiraan waa intaasoo wax kula qabataaye markaasaan farxad iyo nashaad dareemay jiifkiina kaga soo toosay markaasay ehelkaygii farxeen maalinkii dambe ayaa waxaa ii timid duqdii oo wejigeedii nooc kale uu yahay waxayna igu tidhi wiilow waxba hay waraysanin waayo markii aan gabadhii u tegey aan hadalkiina u sheegay waxay igu tidhi aamus cajuusatiyey xadkaagina ha ka soo gudbin haddii kale ciqaab daran ayaad la kulmi doontaa markay sidaa igu tiri ayaan xanuun daran dareemay xanuunkaasoo ka darnaa kii horey ii haayey waxaana dareemay walbahaar daran duqdii markay aragtay ayay igu tidhi gabadhaas sidaa ugu hari maayo berin waan u tegayaa wixii dhacaya ha ka dhacaane maalintii dambe ayay duqdii baxday waxayna ii timid gelinkii dambe waxayna igu tidhi bishaarayso waxaan ku wadaa war farxad lehe markii hadalkaasi maqle ayaan dareemay inay ruuxdeeda jidhkayga kusoo laabanayso waxaana islaantii ku yidhi maxaad akhbaar ii sidaa waxayna igu tidhi shalay markaan kaa tegayay aad baan u murugaysnaa waxaana ka baqaayay inay gabadhaas markaan u laabto oo isoo deeriso kadibna oo xaalkaagii ka sii daro markaan u tagay anigoo murugaysan oo wejigaygana walbahaar ka muuqdo ayay gabadhii igu tidhi maxaa kuu dhaca oo sidaan oo dhan ula murugaysan tahay waxaan ku idhi shalay ayaan kuu imid anigoo fariinkaaga wada wiil aad kuu jecel dartiina sariir kuu saaran markaan fariintaa kuu sheegay waad i deerisay anna wiilkii markiin deeradaada u sheegay ayuu ka sii daray wuxuu hadda ku sugan yahay nolol iyo geeri dhexdooda kolkaasay gabadhii igu tidhi wiilkaasi xaalkiisa muxuu yahay bal iga waran waxaana ku idhi waa wiil aad u wanaagsan qalbi jilacsan wuxuuna maalmo ka hor kuu arkay arooskii hiblaayo una
ku jeclaaday jecel waali ah ilaa uu sariiryaalka noqday haddana wuxuu halis qarka u saaran yahay inuu geeriyoodo jecelkaagii dartiis haddii aan degdeg loogu gaarin iyadoo xoogaa murugaha dareentay ayay waxay tidhi dhibtaan oo dhan wiilkaasi dartee miyuu u marayaa kolkaas ayaan ku yidhi haa wallaahi haddaad rabto waan kuu keeni karaa waxayna igu tidhi u tag oo igu salaan waxaadna u sheegtaa inuu ii yimaado maalinta jimcaha salaada ka hor inta uu aabbahay masaajidka ku maqan yahay kadibna inta uu aabbahay soo laaban ayaan soo dirayaaye markii aan maqlay hadalkii habartii duqda ahayd qalbiga ayaa ii degay waxaana dareemay farxad aad u weyn kolkaas ayaan duqdii lacag fara badan siiyey oona u daceeyey maadaama ay hol adag ii qabatay maalintii jimcaha markii la gaaray ayaa duqdii ii timid oo xaalkayga waraysatay waxaana u sheegay inaan fiicanahay waana isdiyaariyey anigoo ku libistay libis aad u bilicsan si fiicanna waa isku carfiyey waxaana damcay inaan baxo hase yeeshee duqdii ayaa igu tidhi waqti fiican ayaad haysataa xilligii ballantana weli lama gaarin bal ka waran haddii aad timaha iska sii jarto waqtigaan kuwa haray oo fursadaadii ka faa'iidaysato ood isqurxiso waa runtaa ayaan ku yidhi waxaan wiil u diray timajaro sare misane caaqil ah heer sarena wax u jari yaqaano asluubtiisana sarayso wuxuu ii keenay odayan timajaraha ah markuu ii yimid ayuu i salaamay oo xaalkayga waraystay waxaana u sheegay inaan roonahay kolkaas ayuu ii gudagalay timajaristii laakiin daldalan iyo hadal ayaa ninkii laga soo taagay waxaan dhibsaday hadalkiisa fara badan waxaan ku yidhi warniyo wax makuu sheegaa hadalkan faraha badan iga daa ee timaha ii jar markaasuu igu yidhi haddii aad ogaan lahayd arrinka xaqiiqadiisa waxaad iga dalban lahayd inaan kuusii faahfaahiyo waxaana maanta kugu baaqayaa inaad samayso waxaan kugu dhaho anigoo meerayaasha ku tusaale qaadanayo hana cabsanin waayo aniga waan kula talinayaa waana kuu naxariisanayaa anigoo muddo sanad kaamil ah kuu khidmaynaya wax mushaarahna kaama rabo markaan hadalkiisa maqlay ayaan waxaa ku yidhi maanta waxaad rabtaa inaad hadal igu hufiso soo ma ahan warniyow sheekadaad hayso maba rabo inaan maqlo kolkaas ayuu igu yidhi sayidii dadka waxay ii yaqaanaan aamusane hadal yari awgeed waxaana gooni ka ahaa walaaladay oo sidii webi oo kale u fataha hadal badni darteed kan koowaad waxaa la yidhaahdaa baqbuuq kan labaadna waxaa la yidhaahdaa haddaar kan saddexaadna waxaa la yidhaahdaa baqiiq kan afraad waxaa la yidhaahdaa kuus halka kan shanaadna laga yidhaahdo cishaar midka lixaad waxaa la yidhaahdaa shaqaaliq halka kan toddobaadna laga yidhaahdo saamit waana aniga waxaana leegu bixiyey aamusnaanta darteeda markuu timajarihii sidaas igu yidhi ayaan waxaan dareemay inuu madax i qarxi doono hadal badnidiisa darteeda wiilkii ii keenay intaan hal dirham siiyey ayaan waxaan ku yidhi war heedhe intay goori goor tahay ninkaan iiga kaxay waxba yuu timaha ii jarana iiga kaxay timajarihii markuu hadalkaasi maqlay ayuu wuxuu igu yidhi waxaan u malaynayaa inaadan garanaynin darajada aan leeyahay anigu waxaan timaha u jaraa madaxda boqorada barasaabada garsoorayaasha iyo ragga ugu sareeya dowladda ee ha igu degdegin kolkaas ayaan ku yidhi waarniyo iga tag hadduu allaha la yahay waxba timaha ii jarani wuxuu igu jawaabay waxaan u malaynayaa inaad degdegsan tahay ee u kaadi ha degdegin shaydaan ayaa degdegaya diinteennuna waxayna faraysaa inaanan degdegin laakiin waxaan la yaabanahay arrinkan aad ku degdegsan tahay oo aad dartiisa ii dedejinaysid waxaana jeclaan lahaa weliba inaan ogaado markaasaan ku yidhi bal anaa kuu sheegaayo horta timaha iga jar wuxuu bilaabay inuu madax ii jaro markuu hal dhinac ii jaray ayuu wuxuu ugu yidhi wallahi inaan ku wada jarayn ilaad ii sheegto halkaad qabanayso markaan arkay habdhaqankiisa iyo inuu waqti igu socdo ayaan waxaan ku yidhi koox aan saaxiibnahay ayaan wada balansannahay ayaga ayaan u socdaa wuxuu ugu yidhi koox aan saaxiibnaha markaan maqlay waxaan soo xasuustay marti aan rabay inaan marti sooro waana ilaabay wuxuuna igu yidhi haddana waxaa la joogaa waqtigii aan marti soori lahaa waana kaasii tegaya ee nabadeey intaan yaabay ayaan ku yidhi oo madaxeygana sidaan miyaad ugu tegaysaa wuxuu igu yidhi haayo xal kalaa jirin wax kastoo martida ayaa ka muhiimsan soo ma ogid markaasaan ku yidhi war heedhe hadday sidaas tahay martida aniga ayaa qadada ka bixinayo oo duudka u dhiganayo ee timaha ii dhammaystir wuxuu igu yidhi nin fiican ayaad tahay waadna mahadsan tahay laakiin waxaa loo baahan yahay cabitaan ay martida cabtadee sidee la yeelayaa tolow waxaan ku yidhi cabitaankan anaa u diyaarinayo haddana wuxuu yidhi billaahi calayk wixii laisku carfin lahaa iyo hadiyadihiina ku dar haddana waxaan ku yidhi wax walba anigaa dibirayo madaxaan howloonan iga qari uun markaas ayuu madaxii hagaajin ku bilaabay wuxuuna iga dalbaday inuu ii raaco meeshaan u socdo oo asxaabteedii lasoo kulmo waxaan ku yidhi lama ogolo inuu meesha uu tago qof aan aniga ahayn markaasuu igu yidhi aniga waxaan u malaynayaa inaad gabar la balansan tahay kolkaasaan ku yidhi waayahay waad iraacaysaa madax uun mar ii dhammeey anoo isla markaa isleh madax uunaa kuu dhammeeyo kolkaasna naga tag ku dheh isagana wuxuu ahaa nin aad u fikir badan oo aragti dheer leh wuxuu igu yidhi waxaad rabtaa miyaa inaad i qiyaamayso markaasaan
ku yidhi balan weeye inaan kaa dhuumanaynin raashinkan u qaad martidii kadibna igu soo noqo markaas ayuu timihii ii dhameeyey lacagtiis ayaan siiyey raashinkiina xamaal ayaan u saaray wuuna baxay aniguna intaan soo libistay oo is soo carfiyey ayaan soo baxay ilaa aan ka soo gaaray gurigii aad baan usoo habsaamay intaa jidka soo socday ayaan waxaan arkay timajarihii oo isoo daba socda markaasaan socodkii boobsiiyey ilaa aan gurigii dalaq ka soo yidhi nasiib xumo markaan gurigii gala ayaa waxaa soo galay barasaabkii markaas ayuu la kulmay mid ka mid ah jaariyadihiisii oo dembi samaysay inta uu ul oo meesha taalay soo qaatay ayuu garaacay waxaa qayladeedu kusoo baxay mid ka mid ah addoomihiisii waxa uu bilaabay inuu jaariyadii barasaabkii ka celiyo hase yeeshee isagana uu ku daray timajaruhu intii waxaasoo dhan dhacay wuxuu taagnaa banaanka guriga markuu maqlo qayladii addoonka ayuu wuxuu mooday inaa aniga la garaacayo markaasuu cawaaday oo uu qayliyey oo dharka iska jeexjeexay ayuu reerkaygii ord ugu tegey wuxuu ku yidhi wiilkiina waa la dilay oo kow baa laga siiyey waxaana dilay barasaabkii magaalada ee sooyaaca maan reer tolkii oo ordayay ayaa magaaladii soo galay iyaga oo qaylinaya oo leh alla wuu diliyey waar isku soo baxaay timajarihiina oo horboodayay si u soo ordaayeen ayay waxay yimaadeen gurigii barasaabka albaabkii ayayna soo garaaceen markaasaa waxaa ka furay barasaabkii waxa uu weydiiyey maxaa idinku dhacay maxaa doonaysaan waxay ku yidhaahdeen sayidkeena iyo wiilkeena ayaa dishay wuxuu ugu jawaabay barasaabkii uu muxuu sameeyey aan ku dilay timajarahaanna muxuu idinka dhex qabanayaa markii sheekadii halkaasi maraysay ay Shahrazad dareentay in suuxi la gaaray wayna aamustay waxayna joojisay hadalkii u banaanaa intii qaybta kale aan ka gaarayno aniguna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum